بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمانتين أصحابتا soo dhawaada kusoo dhawaada janalka Faiza's World maanta waxaan samaynayaa hair mask oo timaha nafaqeynayso nafaqa siinayso timahana dheereynayso jileecna ka dhigayso maskadan waxa way timaha hadii aad si toos ah u isticmaashid waxa way jilcismo u baahnaanaysa timahana waa kuugu baxayaan jileecna waa ka dhigaysaa maasha Allah nafaqay siinaysaa يعني waxa uga maarmaysiin in maaskadaanetood jilcisada oo kiimikada leh jilciso waxa waaye oo dabiici ah timaha qurxinaysa nafaqeynaysa oo ku bixinaysa marka dambayso ma sha Allah marka waxa idin leeyahay soo dhawaada insha Allah hadana waa bilaabaneynaa alaabta aan ka sameeysanayno jilcisada oo dabiiciga ah ama nafaqada timaha ama protein keratin alaab waxa way asxaabta aad u fudud waxa ka sameeysanayna saddex shay flaxseed boorash iyo waraango haddana waa bilaabaneynaa marka hore flaxseedkan karsanaynaa laano flaxseedka iyo boorashka iyo waraangada ma la isla saari karo dabka marka hore waxaan karsanaynaa flaxseedka markaan karsano oo ka qaadano jiilkiisa kadib haddana alaabta kale aan sameysanaynaa insha Allah laakiin marka hore flaxseedkan dabka saaranaynaa digsiga marka hore waxaan kusoo shubayaa 3 qaado oo flaxseed ah iyo 2 bakeeri oo biyo ah 3 qaado waaweyn oo flaxseed ah iyo bakeer oo biyo ku karsanayno dab gaaban aan ku karinaynaa marka waxa u sugaynaa ilaa uu ka karaayo oo jilkiisa uu soo baxay jilkiisa marka uu soo baxana waxa way khalaas waaye diyaar u noqonaya markaas insha Allah haddana waxa dabka soo saaranaynaa oo karsanaynaa boorashka iyo waraangada boorashka waxaan ka qaadanaynaa 3 qaado iyo waraangada oo iyadana 3 qaado ah waxa ku soo darsanaynaa marka 2 bakeer oo biyo ah labadaas bakeer oo biyaheena u karayaan boorashka asxaabta timaha faa'iido badan uu leeyahay wuxuu ka ilaalinayaa qaleelka badan iyo agoolka sidoo kale timaha waa ratibaya waa qoynaya go'ida uu ka ilaalinaya timaha go'ay aad ugu fiican yahay aflaaqada uu fiican yahay timahana jileec ka dhigaya nacuum oo siinaya naacim oo ka dhigaya sidoo kale lamca uu siiya waa dhalaalinaya ma sha Allah aad iyo aad boorashka timaha ugu fiican yahay sidoo kale waraangada iyadana timaha aad u nafaqeysaa way badinaysaa jileec ka dhigaysaa fitamiinad badan ay leedahay iyo protein timahana way bixisaa ma sha Allah boorashka iyo waraangada hadda bis way asxaabtu waa soo bislaadeen ma sha Allah khalaas ay biyaha waa ka yaraadeen markaan biseel waaye diyaar ay noo yihiin dabka waa ka daminayaa haddana insha Allah waxaan tusinayaa waxyaabaha kale oo gadaal uga daraayo baaquligan yarkan asxaabtu waxaa noogu jira flaxseedkii oo hore u soo karsanay jiilkiisa waxaa ku darsanaynaa boorashka iyo waraangada isku soo karsanay haddana makiinada u isticmaalaynaa waa shiidaynaa makiinada gacanta u isticmaalaynaa si fiican u shiidaynaa si maaskadeena ay noogu noqoto smooth oo naacim ah si fiican in loo shiidana fiican asxaabta in maaskaadka timaha iyo maaskaadka oo skinka u isticmaalaynaba si maaskaadka timaha laana maaskaadka timaha si fiican hadii aan loo shiidin oo naacim laga dhigin waxa way timaha qabsanay timaha ku dhageysaa marka waxa fiican markasta in si fiican loo shiido naacim laga dhigo waxa kale oo ku soo darsanaynaa caanaha qumbaha waxa gasac igu jira asxaabta waxa way caanaha qumbahane timaha ma sha Allah aad u qurxiyaan jileec ka dhigaan waa qoynayaan timaha sidoo kale lamcaysiyaan iyo dhalaal ma sha Allah marka caanaha qumbaha wax yaraan ka isticmaalaynaa yani qiyaastii 4 qaad meelaha ka isticmaalaynaa oo caanaha qumbaha ah waxa kale oo ugu dambeeyay oo ku darsanaynaa saliid qumbaha idan waxaan ka isticmaalaynaa qiyaastii 2 qaado saliid qumbaha idan ma sha Allah timaha waa jilcisaa jileec ka dhigaysaa timaha waa qoynaysaa aad iyo aad ugu fiican yihiin saliid qumbaha iyo caanaha qumbaha timaha jileec ka dhigaan way nafaqeeyaan wayna bixiyaan sidoo kale dhalaalna waa ka dhigaan dhalaalay siiyaan ma sha Allah haddana si fiican isugu qasaynaa asxaabta maaskadeena intaas ka kooban tahay flaxseed ama qoondar waxaan isticmaalayna maanta oo timina u isticmaalayna sidoo kale boorash
iyo waraango saddexdoodana maasha Allah timaha aad iyo aad u qurxiyaan jileecay ka dhigaan nafaqay siiyaan way bixiyaan dhalaalna way siiyaan go'itaankay ka ilaaliyaan يعني sida hore nigu soo sheegay waxa waaye saddexdoodaba saddex shay oo kala daran oo timaha aad iyo aad ugu fiican iyo waxa kale oo isticmaalayna in caanaha qumbaha iyo saliidiisaba oo cajiib timaha aad iyo aad ugu fiican oo aad u jilciyo maaska waxa waaye asxaabta timaha jilic ka dhigayso nafaqeynayso oo jilicsada kiimikada leh aan uga maarmayna waa insha Allah isticmaalkeedana waxa waaye timahaaga nadiif ah u isticmaalaysaa waa marsanay si fiican u marinay marka hore kabacdina baca ku xiraysaa waxa ku haynaysaa ilaa 2 saac hadii aad 3 saac ku haysan kartaa kadibna shaambeero khafiif ah u isticmaalaysaa oo iskaga dhaqaysaa isbuuci hal mar isticmaalaysaa hadii la rabana 2 jeer waa la isticmaali karaa gabdhaha yarna waa loo marin karaa maaska waxa waaye dabiici oo yar iyo weyn bal isticmaal karo ma sha Allah timaha aad ugu fiican maaska waxa waaye asxaabta habeenka ciida ugu talagalnay oo timaha aan ku jilcinayno ku nafaqeynayno gabdhaha yar oo 5 jirka waa loo marin karaa ma sha Allah aad iyo aad idin anfici doonta marka waxaad leeyahay ka faa'iideysta aad iyo aad u mahadsantihiin aad kaga mahad celinaya daawashadiina quruxda badan insha Allah waxaan noo balan video-ga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh